السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kusoo dhawaada daawadayaal muuqaal cusub haddii aad janalka ku cusub tahay subscribe noo dheh like-na saar muuqaalka si ay faa'iidadu u gaadho dhammaan muslimiinta. qisadan la yaabka leh ayaa sidoo kale waxa ay xambaarsan tahay cibro weyn taasoo tilmaamaysa ahamiyadda ay salaadu leedahay iyo in qofka muslimka ku jiro xerada ilaahay inta uu ku jiro salaada. qisadan ayaa ka dhacday mid ka mida jeelasha waaweyn ee dadka lagu ciqaabo. ka mida maxaabiista jeelka ku jirtay aadna loo ciqaabayey ayaa maalin maalmaha ka mida waxa uu go'aansaday taliyihii jeelku ina uu takhalluso weliba uu dilo si arxan darro ah. wuxuu u yeedhay mid ka mid a askartiisa waxaanu faray inuu u diyaariyo ay weliba aad u gaajaysiiyo isagoo macluusa karaad la angeliya maxbuuskan si uu u cuno halkaana uu uga takhalluso. askarigii ayaa waxa uu fuliyey amarkii taliyihiisa wuxuuna soo kaxeeyey ay aad u gaajaysan waxaana u xareeyey maxbuus. nasiib wanaag aygu waxa uu galay maxbuuskii xilli uu salaad ku jiray. aygii intuu dhinac istaagay ayuu sidii wax sujuudsan foorarsaday. ninkii muusan dib u sii eegin intuu noqday ayuu albaabka dusha oga soo xiray waxaanu ku laabtay taliyihiis waxaanu u sheegay inuu fulay amarkiisii. muddo kadib ayuu taliyihii askarigii ku yidhi orod oo ka soo maydh qolka dhiiga. haddaa ninkii ma noole. ninkii ayaa soo laabtay qolkii waxaabuu arkay aygii oo aayar garab fadhiya ninkii maxbuuska ahaa ee ugu talagalay inuu cuno. askarigii ayaa isagoo yaaban waxa uu ku laabtay taliyihii waxaanu uga warramay waxa uu soo arkay. taliyihii oo aad u caraysan ayaa waxa uu ku yidhi orod oo tooga eygan ay fara badan oo kooxana soo kaxee oo u xaray cadbacad ha u goostaane. askarigii ayaa ku laabtay aygii waanu toogtay isagoo ku iloobay meydkiisii qolkii uuna laabtay waxaanu soo kaxeeyey ay kale waxaanu u tegay taliyihii isagoo ka codsaday inuu daawado sida ay ninka u galayaan aydani. taliyihii iyo askarigii oo aydii wada ayaa ku soo laabtay ninka waxaanay u xareeyeen aydii ayaa markay saa u galeen waxay arkeen aygii uu dilay ee uu qolka kaga dhex tegey waxayna bilaabeen gadood waxayna iyagoon dheg la qabto lahayn dib isugula soo laabeen taliyihii waxayna cadcad u goosteen taliyihii jeelka iyagoo u aargudaya saaxiibkoodii lagu dhex jiray qolkan. subxaanallah. qisadan la yaab kale waxa ay tilmaamaysaa ahamiyadda ay salaadu leedahay iyo qofka muslimkiihi inuu ku jiro xerada ilaahay uu ku jiro salaada. qof walba oo muslim ah waxaa ku waajib ah inuu guto rukniga salaada. sidoo kale waajibka abaalkiisa aakhira ka soko waxay qisadani caddaynaysaa inuu adduunka kula kulmayo. daawade janalka subscribe dheh haddaad ku cusub tahay muuqaalkana like saar si ay uga faa'iidaystaan qisas la yaab kale muslimiin tiro badan